maan bulshooyinka Soomaaliyeed khaasatan kuwa reer Khaatumo meel kasta ay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan hadallo maalmahan ka soo baxbaxaya goostada gobolada waqooyi inaan kelmada ka idhaahdo. waxaan maqlaynaa gacan ku dhiigle ku caan baxay maanigoo wax dili kara duca qaadan maayo anigoo wax dili kara. ninkii hadallada Soomaali ama goboladan uu ka tirsan yahay oo ka dhashay kii shalay ku mahmaahayay anigoo wax dili kara duca qaadan maayo anigoo wax dili kara baaba wuxuu xaydanayaa baa la leeyahay inuu maxaan ku raadaayo horjooga ka noqdo oo uu leeyahay madaxweynahan ka noqonaya dhulkan goboladan waqooyi. gacan ku dhiigle waa af ku dhiigle waa gacan ku dhiigle waa gacan ku dhiigle sida wax loo dilo bartay laakiin aan aqoonin sida wax loo hogaamiyo iyo sida ummad loo dhaqo iyo sida ummad nabad looga shaqeeyo niman aqoonin oo ku caan baxay dhagarta waliba sokeeyaha iyo dirisyada ku caan baxay baa u cimaamadan gobolada waqooyi. annagu haddaanu nahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kama aanan qayb gelin waxa ay doorashada ku sheegeen dadka iyagu ma codayn mana qaadan kaararka. waxaadna ka garanaysaan oo laga garanayaa oo laga og yahay tirada ay ku sheegeen inay ka soo baxeen gobolada Sool iyo Sanaag. maadaama aanan codayn maadaama aanan la lahayn waxa ay maxaan ku radaa ku sheegeen Somaliland maadaama aanan la wadaagin talada ay maxaan ku radaa ku goosteen gobolada waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba iyo waliba international community xuquuqul insaanka cid kasta oo danaysa wada noolaanshaha aadanaha inaanan ka mid ahayn ka mid noqon doonin ku tirsanaan doonin maxaan ku raahdaa gobolada waqooyi maamulka goosatada gobolada waqooyi maamulka ay sheeganayaan gacan ku dhiigluhu leeyahay horjooganka kama mid noqon doono kamana mid yihiin. taasi waa xaqiiqa wixii ka yimaada berrito u sheegaynaa khaasatan dadyoga maamulada Soomaaliyeed khaasatan dawladda federaalka ah Soomaaliya guud ahaan international community inaan maamulka iyagu iyo deegaanada iyadu iyo gobolada iyadu aanay ka mid ahayn kana mid ahaan doonin goostada gobolada waqooyi. waxaan isleeyahay wuxuu ka hadhay oday habeen dhaweed hadlayay oo lalahaa aqalada gobolada Hargeysa magaalada Hargeysa golayaal ay ku sheegaan golo ka mid ah oday horjooga ka aban maqlayay oo leh war Khaatumo lama heshin Somaliland. wallaahi odaygaas xoogaa malaha nin wax aqoon baan bafilayaa inuu warkiisu u badbadnaa. dadka dhulka kan degan waa dad yaqaana waa dad in badan dhulka wada joogay waa dad garan kara cidda wax ka go'aan iyo mas'uuliyadda maxaan ku raahdaa cidda wax la heshiiyay iyo cidda la heshiin. haddii oday keligii soo soconaya u tagay wallaahi wax aqli leh oo leh maxaan ku raahdaa warnin baa iloo yimi cid in la heshiin alla ilaahay ninkaasi warkiisu waa ila qumanaa wax ila quman bawaayadan oo halka ka soo yeedha ninka hadalkiisa runtii wax macquul ah oo la garan karo oo la arki karo ahaa. sida la og yahay maamul goboleedka Khaatumo golayaal buu lahaa wax garad buu lahaa siyaasi buu lahaa nin garbood buu lahaa ehel buu lahaa wax walba oo bulshadu ay leedahay buu lahaa. haddii nin kilkilada wax isagu uu og yahay oo feedhihiisa yareer ku dhex jira kaliya oo leh ummadda anaa ka mas'uula leh war mas'uuliyaddu sidaa maaha. mas'uuliyaddu wada tash bay ku timaadaa
meeya golayaashaadii meeya golayaashii maamul goboleedka Khaatumo meeya golihii isimadu golihii ugu sarreeya dhaqanku nin ma ka wataa cidima kula jirtaa cidima la qaadatay waxaan wado meeya cuqaashi soo jireenka ah meeya siyaasiyiintii meeya waxgaradkii nin garboodkii odaygaas mararka qaarkoodna sida uu isagu naftiisa yeelay iyo taariikhda madoowa uu maxaan ku dhahdaay ku sagootiyey isagoo 80 jir cimrigiisa runtii waxa aad looga xumaado weeye waa dhaawac uu isu geystay bulshadu uu mas'uulka u ahaa wax ka dhigatay laftigeedana waa dhaawac uu gaarsiiyey oo ku ooli doono in muddo ah waase ka soo kaban doonaa ummadda tan reer Khaatumo sheekh iyo shariif bale wax garad dhalinyaro ubad dhul intaba leh oo qaran ah haddii qof wax la dhusdhusiyay qarsan mayno buu yiraahdaa qarsan mayno war maxaa qarsataa waabad kaliya baad batahay qof kaliya waxay la tahay inuu salmaxaan ku dhahdaay isaga halkaas dhigay maantana in sidaa shalayna loola hadlo alla ilahe waajibaad u lahaa bay ahayd arrintaasi odayga malaha intaa waabuu nastaaxaynayaa intaa ka badan ma rabo inaan idhaahdo dadka reer Khaatumo meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa waxaa curatay wixii aad u samaysateen maamul goboleedka Khaatumo way curatay daruur baayna kor harsanaysa da'aysa ilaahay idankiisa wixii aynu maamulkan u samaysanayna maxaan ku dhahdaay sida ugu dhaqsaha badan ilaahay idankiisa waan rajaynaynaa in guulo degdeg laga gaaro in badan baad u taagneedeen qarannimada Soomaaliyeed in badan baad jiritaankiina u taagneedeen in badan baad maxaan ku dhahdaay sharaftiina iyo karaamadiina inaad ilaashataan aad u taagneedeen ilaahay idankiisa waqtigii waxa la gaaray aad wixii aad maxaan ku dhahdaay ku soo tacabteen waqtigii aad ku naaloon lahaydeen baa la gaaray aan hareeraha iska taagno haddii Allah awood leeyahay aan u diyaar garowno dhismaha deegaanadeena iyo dalkeena iyo maamulkeena aan u diyaar garowno nabadgelyada gudaheena sidii aynu hagaajin lahayn aynu u diyaar garowno wixii mas'uuliyiintii maxaan ku dhahdaa aad xilka u dhibateen mas'uuliyiinta aad ka dhigateen dhagartii iyo xumaanihii ay inoo geysteen raadkeedu haddeertu sii qoyan yahay kii ugu dambeeyay Hargeysa aaday sidii aynu maxaan ku dhahdaa uga maydhan lahayn aynu maxaan ku dhahdaa ugu bedeli lahayn maskax cusub iyo jawi cusub iyo nabadgelyo darradii dhexdeena laga abuuray sidii aynu maxaan ku dhahdaa uga soo kaban lahayn aynuna u hoggaan qaadi lahayn bulshadeena reer Khaatumo ama gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidii nabad waarta iyo horumar sidii ay maxaan ku dhahdaa aynu ugu hoggaan qaadi lahayn qof kasta mas'uuliyad baa saaran ilaa ka ugu yar ilaa ka ugu weyn mas'uuliyad baa saaran baan ugu aaminsanahay saasaanu qabnaa maamulkaygu saas u aaminsan yahay qof kasta oo ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn in mas'uuliyad saaran tahay qof walba mas'uuliyadda qaybtii uu ku lahaa inuu qaato waa ka rajaynaynaa waa ugu baaqaynaa haddii Allah awood leeyahay waxaan rabaa haraadiga askarta ah la soo khalday weli ku qaarkood ku sugan yahay deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda gobolada waqooyi war meeshan dhimasha idin taalla annagu weerar kuma nihin amni darrana nabadgelyo darrana dhaqan nooma ah inaanu abuurro laakiin waxaan hubaa in halka kan haddii aydan ciyoon ugu laaban deegaanadiinii iyo meelihii laydinka soo khalday halkan xabad baa idin taalla xabad baad ku timaadeen xabaddii aad ku timaadeen baa idin taalla aan ahayn naftiinna iyo dhiiggiinna badbaadsada kuwa u jaamaynaya naf ka sugaya gacan ku dhiiglaha deegaanada iyada ku sugan waxaan leenahay boqolaal jeer horena nidhi haddeerna leenu ku celinaynaa
kun noqda ma rabno dhiiggiina iyo dhaqankiina toona ma rabno maxaan ku dhahdaa haddii aanan ka fursan waayin weli jaanis yaanu bixinaynaa weli waanu idin leenaha ka waantooba deegaanadan iyo dhulka kanaad ku soo duusheen ee laydinku soo maxaan ku dhahdaa laydinku soo khalday ka waantoobaan idin leenahay intaa wixii ka dambeeya bulshada reer Khaatumo khaasatan dhalinyarada waxaan la hadlayaa dhalinyaradan si gaar ah ula hadlayaa waa kuwii mustaqbalka ummadda noqon lahaa berito ahaa ama maantadanba ah warninka 70 jirka iyo ninka 80 jirka ah iyo ninka 60 jirka ah waqtigiisa uu soo qaato kuwa maanta la rabo inay maxaan ku dhahdaa ka dhiidiyaan oo ay diidaan waxaan maxaan ku dhahdaa karaamo darrada ah ee aan mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo jiritaankooda intaba waxyeelada ku ah inay ka dhiidiyaan oo ay diidaan baan faraynaa oo ku talinaynaa oo aanu leenahay dhalinyaro weynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan waxaan farayaa oo aan leeyahay oo aan ku talinayaa innagu tallaabo ka baxsan deegaanadeena idinkuma waaninayo idinkana hadli maayo idinmana leeyahay ku duula laakiin dhulkeenna iyo deegaanadeena taladeeda ninna u daba fadhiisan mayno ninna ka yeeli mayno ninna weydiin mayno taladeeda annagaa leh oo innagaa lahaan doonna oo innagaa ilaahay nagu abuuray wixii intaa ka soo hadhana dawladda Soomaaliyeed oo federaalka Soomaaliya ah baa wixii ka soo hadhana baynu hoos tagnaa oonna laakiin koox leh Soomaali baanu ka go'aynaa koox inta iyagu afka iskashkashaday oo iyagu wax soo qorqortay leh waxaan idinku sanduleynaa dhalinyarada ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mustaqbalkiina taasi idinma anfacdo sidaad arrintaa uga waantoobi lahaydeen kuwiina haddiiba ay jiraan ma araganu dhalinyaradu kuma arag xanuunka ku dhacay inta badan kuwii odayaasha ama rag in badan oo maxaan ku dhahdaa raggii hore ee odayaashii hore rag badan oo ah xanuunka ku dhacay weli dhalinyaradu waa ka caafimaad qabtaa mustaqbalkiina ka tashada waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo degdega baan idin rajaynayaa Soomaalinimo waartaan idin rajaynayaa Khaatumo hana qaaday guul iyo gobonnimo iyo midnimo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.